Habeenka arooska marka aad bikro jabayso waxay kula muuqan kartaa mid cabsi leh. Inkastoo dumarka qaarkood laga yaabo in ay la kulmaan xanuun inta lagu guda jiro waayo aragnimadooda ugu horeysay ee la xiriirta galmada. Ugu horeyn ka dhaadhici oo kala hadal lamaanahaaga sida ay galmadu u shaqaynayso iyo in aad diyaar u tahay inaad gabarnimadaada siinayso. Waayo waxa ay kaa caawin kartaa in jirkaaga u diyaar garoobo galmada. 1. Hubi inaad diyaar u tahay inaad galmo samaysid. Marka ugu horeyso in aad cabsi dareento waa caadi. Balse isku day in jirkaaga iyo maskaxdaada ee galmada diyaar u tahay, sida in aad kacsatid iyo in aad ka fikiraysid waxyaalo galmada ku saabsan. Haddii fikradda galmada ay kaa dhigayso in aad dareento dembi ama walaac, ogow in dumar badan kale oo jira oo ku soo koray in la barto galmada in ay ceeb tahay ilaa xilliga guurka laga gaaro mooye, balse waa laga maarmaan in ay jirto waayo aragnimo ku saabsan arrimaha galmada xagga ninka iyo naagta. 2. La hadal lamaanahaaga. La sheekaysiga lamaanahaagu waxay kordhin kartaa is-aaminaadiina ayadoo kaa caawinaysa inaad dareento xasilooni inaad galmo samayso. Lamaanaha wanaagsan waa inuu ahaadaa mid dareenkaaga tixgelinaya oo si dhab ah kaaga caawiya habraaca loo marayo habsami u socodka bilowga ilaa dhammaadka hawsha sariirta. U sheeg waxa cabsidaada iyo rajadaadu tahay iyo sida aad dareemayso. Waxaa laga yaabaa inaad runta u sheegto, sida inaad ku dhahdo runtii aad ayaan u walaacsanahay. Xoog ha ii adeegsanin iyo wixii la mid ah. U sheeg lamaanahaaga haddii ay jiraan waxa aad doonayso in aad isku daydo ama waxa aad doonayso in aad samayso. 3. Hadeg degin. Galmada waxay noqon kartaa mid xiiso leh oo aad hamuun u qabto, sidaa daraaddeed waxaa laga yaabaa inaad dareento baahida loo qabo in degdeg ku galo, gaar ahaan haddii uu qooq ku hayo. 4. Waqti ku bixi raaxadda. Waqtigaada qaado. Isku day inaad ku raaxaysato halkii aad ku degdegi lahayd. Waqti ku bixiya fahmidda qaabka aad u raaxaysan doontaan adiga iyo lamaanahaaga. Ku bilow dhunkashada iyo salaaxida. Raaxadda hore waxay kaa caawin kartaa in ay kordhiso kacsigaaga, jirkaagana furfuri doonto, taas oo sahlaysa in lamaanahaaga si xanuun la'aan ah kuugu galmoodo. Xasuusnow in aad joojiso galmada mar walba oo aad xanuun zaa'id ah dareento. Waxaad xaq u leedahay in aad joojiso wakhti kasta oo aad doonayso. Ugu dambeyn, u gudbi lamaanahaaga baahidaada. Ha ka baqin in aad weydiiso waxa aad u baahan tahay gogosha kadib. La wadaag lamaanahaaga haddii aad wax raaxo ah dareentay, sidoo kale haddii ay jiraan xanuuno ama raaxo dari. Waa muhiim in aad raaxo ka hesho galmada intii aad ku xanuunsan lahayd. Haddii aad nagu cusub tahay, sabskrayb saar.